inaad dhegihii aad wax ku dhegaysan jirteen hadday laba ahayn maanta inaad afar ka dhigtaan inaad afar ka dhigtaan oo sheekha aad u dhegaysataan insha allahu tacaala aanad ka faa'iidaysataan soomaalida waxay dhahaan xareed maalin walba dhul ma taalo marka sheekh haddaa fursad le maanta inaad si fiican u dhegaysataan maaragta dhaweynaya sheekh axmed nuur doctor axmed nuur tafadal meeshan buda tawakal hala dhahaa gabdhahan arrintan aad arkaysa muddo ay soo socotay dhowr bilood 6 bilood inta way kusii dhow tahay oo maalin hadda adiga kugu soo wareejinayaa waxoogaa waxaan ka cudur daaranaynaa masjidka qaybta dambe waa qabya marka dabkii iyo makarafoonadii iyo karantadii weli lama soo gaarsiin marka khayr allah kuu jazeeyo tafadal mashkuuran marka adiga hadda kugu soo wareejiyay hadalka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاكم الله خير وبارك الله فيك بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها علماء معلمين تا قبلها ما شاء الله تعالى حافظان بركيسن مقالة قارسة كتالة واد وذا مهسنتين إن شاء الله تعالى إن شاء الله كلمة عن ربينا ما أنت إذن لقى يبصدو أما أي نقطة دردارا كان وحوية hooyooyinkii a'imadii afarta ahaa ee afarta madhabood baa la yidhaahdaa imaamu abi xaniifa iyo imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo imaamu axmed bin xambal hooyooyinkood dowrkay ka qaateen inay soo saaraan oo imaamyo noqdaan inay a'ima noqdaan a'imatan yuqtadaa bihim lagu dayda ay noqdaan islaamka ay wax u faa'iideeyaan yaa doorkaa ka qaatay ma aabbaa soo saaray mise hooyaa soo saartay waxaan ugu doortay mowduucaas maadaamood hooyooyin tihiin maadaamood gabdho tihiin waa hooyo ilmo dhashay iyo gabar insha allahu tacaala u socota inuu ilaahay ilmo siiyo marka qof waliba inuu hooyo noqdo qof walbana wuu jecel yahay inuu ilmo fiican soo saaro gabriya wiil wuxuu noqdaba marka bal dowrkaasaan rabaa inaynu xogaa isla darisnay insha allahu tacaala a'imadu siday u kala weynaayeen baan waxoogaa u soo wadaynaa imaamu abi xaniifa ayaa a'imada ugu weynaa imaamu maaligna wuu ku xigay imaamu shaaficina wuu ku xigay axmed bin xambal baa u yaraa haddaba abu xaniifa intaynaan isaga u gelin waxaan ka sheekayna ma rabo sheekh walba isaga iyo cilmiga siduu u bartay iyo ardaydiisii iyo sheekhyadiisii iyo fulaanka iyo kutubtuu qoray kama hadlayno waxaan rabaa inaan ka hadlo qof walba hooyadiisay u tarbiyaysay maxay ahayd ballantii ka dhaxaysay isaga iyo hooyadii muxuu ahaa doorkii ay ka qaateen iyagu carruurtooda haddaba intaynan abu xaniifo gelin ba waxaan rabaa hooyadii maxay ahayd aabbihii sidee buu ahaa iyaga naftoodu say isku barteen iyaga naftoodu say isku guursadeen taasaan rabaa inaan wax yar hordhig aan ka dhigno waxaa jira qarnigii abu xaniifa nucmaan ibnu thaabit alkuufi baa horta la yidhaahdaa taariikhda hijrigaa markay ahayd 80 taariikhda hijriga oo maanta 1441 bishii koobaad baa 8 ah taariikhda intaa maraysa oo islaamka markay 80 maraysay ayuu dhashay abu xaniifa 150 sanana wuu gaadhay xilligii intii uu noolaa ilaa 150kii ayuu noolaa wuxuu ahaa faqiih wuxuu noqday caalim muslim oo ogtihiin aimada afartaa ee imaamu ahlu sunna wal jamaa aimada la yiraahdo buu kamid ahaa madhabka xanafiga waa sheekha iskale wuxuu ku sifoobay cilmigiisa badan iyo akhlaaqdiisa wanaagsan imaamu shaafici baa wuxuu yiri man araada an yatabahara fi lfiqh qofka raba inuu fiqiga ku noqdo baxar iyo cilmiga wuxuu noqonayaa ciyaal iyo caruur buu noqonayaa marka abu xaniifa loo fiiriyo abu xaniifa wuxuu ka mid ahaa taabiciintii buu ka mid ahaa wuxuu la kulmay qayb dhan oo asxaabta ka midana wuu la kulmay sida anas binu maalik iyo kayrkiiba waxaa lagu yaqiinay cibaado tiro badan warac iyo xalaal miirasho ayaa lagu yaqiinay haddaba aabbihii iyo hooyadii siday isku guursadeen siday ku kulmeen qarnigii koowaad ee hijriga sidaan sheegnay waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo qoys faqiira ka dhashay oo waxba aan haysaninoo sabool ah
laakiin cilmiga iyo diinta barta warac iyo xalaal miirashana lagu yaqaano maalin buu aada u gaajooday isagoo aada u gaajaysan buu beer soo dhex maray beertii baa wuxuu arkay cid la joogta ma lahayn waxaa ku yiilay geedkan tufaaxa la yidhaahdo tufaaxaas wuxuu is yidhi hal xaba haddaad ka goosatood iska cunto oo naftaada aada ku celiso armayna wax dhibaataa lahayn hal xabbuu ka goostay wuuna cunay markii halkii xabbo uu cunay ayuu dib isu weydiiyey wuxuu yidhi ma waxaad cuntay xoolo bini aadam ma adoon laguu amrin adigoon oggolaansho u haysanin miyaad cuntay alleelaha wuu walwalay aad buu arrinta uga walwalay kadibna wuxuu raadiyey qofkii beerta iska lahaa wuxuu yidhi alleelaha waa inaan raadiyo qofkii beerta lahaa waa inaan ka dalbo ilaah ii dhaaf waa inaan idhaahdo caf wuxuu helay odaygii beerta iska lahaa odaygii baa wuxuu ku yidhi hal xaboo tufaaxaan beertaada ka cunay waxaan rabaa inaad iga saamaxdo wuxuu yidhi odaygii kaa saamixi maayo wuuna diiday wiilkii waa murugooday muddo ayuu aada iyo aada u murugooday waa daba socday odaygii waa u diiday markii dambe odaygu maalin dambe gurigiisu iska aaday wuu iska seexday wuu baxay wiilkii albaabku fadhiistay ilaa salaada casar uu soo baxo buu sugayey markuu soo baxay buu arkay wiilkii oo meeshii weli taagan wuxuu gartay inay dhab ka tahay wuxuu yidhi waxaan rabaa adeer inaad i cafido adduunka intaan noolahayna beertaada aan ka shaqeeyo beertaan kaaga shaqayn ilaa naftu iga baxdo intaa xoolana kaa qaadan maayo keliya inaad i cafidaan rabaa wuxuu yidhi waan ku cafinayaa laakiin bisharti baan kugu cafinayaa hal shardi waa maxay buuhi wiilku wuu yahay wuxuu yidhi shardi baa tidhi 100 shard 1000 shardi keen 1000 shardina ii qabo waxa rabto sheeg mar haddii la cafinayo alxamdu lilah yani ilaahay buu ka baqayaa qiyaamada inuu la tago habadkii tufaaxa ahaa buu ka yaabaya wuxuu yidhi shardi waa maxay waxaa weeye buu yidhi bishardi gabadhayda inaad guursato weeye buu wiilkii wuu la yaabay nin miskiina oo faqiir oon waxbaba haysanin oo loo shardinaya gabar guurso wuxuu yidhi waayahay diyaar baana laakiin wuxuu yidhi gabadhaydu waxay tahay aan kuu sheego halkaas hawsha ku jirtaa gabadhaydaan kuu sheegayaa waa camyaa way dhala'da waa samaa way dhagalaada waa bakmaa way afla'da wahiya muqcadda lugahana way la'da shuruuddaa ma ku rabtaa wiilkii waa tacajubay musiibadan labaadee timid waa maxay buu yidhi musiibadii horeo tufaaxu la rafaadsanaa muddo kadib waan soo fikiri buuhi waa u yimid olu fiirso wuxuu yidhi imra'a camyaa indhala oo dhagala oon hadlaynin oon istaagaynin inaad adduunka on waxba adda kuu qabanaynin inaad adduunka la noolaato oo aakharo xabadkaa tufaaxa lagaa cafiyo iyo inaad diiddo oo aakhare laguu qabsado xaqii bini aadamiyaa weyn odaygii baa u yimid wuxuu yidhi adeer diyaar baan waa qaadanayaa gabadha waa yahay wuxuu yidhi maalinta khamiista ah ii imow meherkaagii wey maalintii khamiista ahayd buu wiilkii oo socda oo dee qalbigiisu jaban yahay oo dareemaysa baa soo galay markuu yimid bay sheekaysteen isagii odaygii xoogaa haddii la sheekaystay meherkiina dhammaaday wuxuu yidhi soo bax guriga ayaan ku gelinayaa gabadhaadii baa joogta xaaskaagii qolka soo gal baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr waa u duceeyey soo gal buu yidhi gurigii buu soo galay haddii gurigii galay maa sha allah tabaaraka allah waxaa guriga ku jirtaa gabadh qurux badan oo lagu sifeeyey kalqamari dayaxa ka qurux badan siday dhaheen culimmadu haddana soo istaagtay oo salaanto assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bayt gabadhii way hadashay wayna kacday ayib ma lugala ah ma dhagala ah way hadlaysaa wiilkii taagnidii buu ka dhaqaaqi waayay fakaannahu amaama xuuriyatin min xuuriyaati aljanna inuu hortaagan yahay aad moodaa
wuxuuse ka fikiray wixii odaygu kuu sheegayay muxuu ahaa odaygu wuxuu sheegayey muxuu ahaa markii aragtay gabadhi isagoo yaaban oo fikiraya bay ku tiri kaalay intay soo kacday baa la yidhi oo gacanta ka salaantay yaa waxay ku tiri ma kuu sheegaa wuxuu aabba kuu sheegay annanii camyaaun can innadari ila alxaraam anigu xaaraan indhahayga kuma fiiriyay tiri wa bakmaau can ilkalaami fi lfuxsh waalxaraam erey xun oo xaaraanana kuma hadlo wa samaau can alistimaaci ila alxaraam waxaan ka dhegala ah inaan dhegaysto xaaraamta iyo heesiya muusikiya howlahana waan ka dhegala ah wa annanii laa amshi ila alxaraam weligayna meel xaaraana uma soconin way dhegalaadahay xumaantay ka dhegalaadahay way indhalaadahay xumaantay ka indhalaadahay way aflaadahay xumaantay ka aflaadahay lugaheedu meel xun uma dhaqaaqaan waxay tiri wa innanii waxiidatu abi aabbahayna keligay buu i dhalay wa mundu zamanin ilaa waafogna wuxuu raadin jiray qof uu aniga igu aamino oo aniga isiiyuu raadin jiray markii uu arkay adigoo xabbata tufaax hal xabbo oo tufaax ah abal ah adiga oo ka xun oo ka seexan la oo ka walwalaya oo hal tufaaxood cuntay ka markuu arkay baa wuxuu ogaaday inaad tahay qofkuu gabadhiisa ku aamini laha marka sidaasuu aabbahay kuu yidhi way aflaadahay way dhegalaadahay way indhalaadahay way lugalaadahay fahanii'an laka bi zawjan waxay tihi alxamdu lilah inaad nin ii tahay wahanii'an liabi banasabika aabbahayna alxamdu lilah inuu maanta adiga ku helay oo sodog uu kuu noqonayo ilmo ood adugu dhashay awow uu u noqon doono ayib habeenkii gurigay galeen alla wuxuu ku arsaaqay walad iyo wiil man hada alwalad kumuu ahaa abu xaniifa weeyaan habeenkaasu iyo calool galay abu xaniifa nucmaan ibnu thaabit alkuufi habeenkaasu calool galay hooyadii marka waxay ahayd qofkaa fiican ee ahludiinka aabbihii naftiisu sidaasuu ahaa cilmigeeda iyo waraceeda iyo deganaanteeda iyo xalaal miradkeeda waxaa tusibaa layidhi maalin maalmaha ka mid ahaabaa waxaa dhacay yay nadartay oo dhaar bay martay dhaartiibay rabtaa inay ka kafaaro gudato marka wiilkeeday weydiisay kumay qancin waayo waxay tiri wiilkaagu armo adiga intuu naxariista kuu naxariisan darteed masale sida sax uuna kugu sheegay zurca alqaasim nin la yidhahdo ii geebay tiri oo caalim ma ahayn dadku waa iska jeclaayeen laakiin wiilkeedaa faqiih ahay oo caalim ahaa waxay ka baqaysaa inuu wax u qariyo oo jacaylku u qabi iyo naxariista iyo dhimrinta u qaban inuu sida saxdaa u sheegi ninkiibaa intuu wacay abu xaniifa intuu u tegey oo war u diray baa wuxuu yidhi haddii masale noocaasa la weydiiyo hooyadii baa u socota sidaa iyo sidaa jawaabta dhi maxaa jira ninkaasi sheekh ma ahayn laakiin hooyadii baa ku qanacsan wuxuu yidhi u jawaab nakeen buu hooyo waan ku kaxayn wuu geeyey waxay tihi masaladaasaan raba inaad iga jawaabto wuxuu yidhi ma adiga oo imaamkii a'immadu kula socdaan kuu jawaabayaa waxay tihi haa wuxuu yidhi u jawaab jawaabtii uu siiyey abu xaniifa yuu u sheegay way qanacday way soo noqotay waxay ahayd diinteeda ilaalinaysay wiilkeedu waxay ka baqaysay inuu muxaabaa wax la yidhaha u sameeyo kalsooni bay rabtay inay ka hesho ayib haddaba abu xaniifa hooyadaasu ka yimid amaa dowrka ay ku lahaa imaamu maalik hooyadii waxaa la odhan jiray caaliya bintu shariik alasdiya caaliya waxay ahayd imaamu maalik bay dhashay faqiih iyo caalim buu ahaa a'immada afartaa kii labaad weeye madhabka maaliga ninka iskale weeye kitaabka la yidhaha almuwata ayuu leeyahay muwaطa'i maalik imaamu maalik oo imaamu shaafici yihi bacda kitaab illaah kitaabka ilaahay inta ka dambaysa kitaabkaas kitaabka ee wanaagsan oo akharu sawaaban min muwaطa'i maalik ma arkin buu yidhi
waagaa bukhaari iyo muslim iyo weli intaan la samaynin bay ahayd. maalik hooyadii waxay ku dadaashay tarbiyadiisa inay tarbiyayso hagaajiso si adagna ay weliba u tarbiyaysay. laakiin imaamu maalik markuu yaraa bal fiiri caqligeeda iyo qaabka ay suluugiisa u beddeshay. imaamu maalik wuxuu jeclaa baa la yidhi wax la yidhaahdo alghinaa walmughaniin buu jeclaa. ghinaa walmughaniin waxaa weeye heesaha ayuu jeclaa. ayib iyo waxaa la yidhahdo nimanka heesi iyo waxaasuu jeclaa. wuxuuna aaminsanaa inay taasi ay tahay طريق gaaban oo غني lagu noqon karo oo durba xoolo lagu heli karo oo shukri iyo inuu qofku caan uu durba noqdo oo helo. hooyadii markay aragtay wiilkeedii oo waxoogaa heesaha jecel way walwash. maxay samaysaa? maxaad samayn lahayd adigu? ma dilaysaa? wax kalaad samayn? halkay ka bilowday? hal arrin bay ku tiri waxay damacday inay niyadiisa beddesho, inay qalbiga u xumayso heesuhu inay xun yihiin qalbigiisa ay geliso. waxay ku tiri hooyo ma ogtahay haddii wiilku idaa kaana qabiix alwajh hadduusan quruxsanayn qofku heestiisa lama dhegaystay ma ogtahay tiri. imaamu shaafici waxaa la yidhi ma ahayn nin foolxu nin qurux badan buu ahaa, laakiin waxay rabtay wax qalbigiisu xusuusto inay u geliso. waxay ku tiri soo ma ogid hadduuna qofku qurux badnayn waxba lagama dhegaysto. shoog buu ka qaaday marka heesii isla markiiba wuuna ka jeedsaday. isla markaa marka u fiirsa tarbiyada ma ayna sii daynin oo faraha kama qaadine waddada fiicanna way tustay. waxay ku tiri hooy intaad kaga tagto alghinaa walmughaniin watlub alcilma cilmiga raadso. waddo fiicanna isla markii way tustay u fiirso. haddana waddadaa markay tustay intaa kuma daynin cilmiga ayuu ka baranayaa wiilkeedu. waxay tiri u tag nin la odhan jiray rabiica binu abi cabdiraxmaan oo culimmada xilligaa jirta ninka ugu caalimsan ahaa, magaalada madiine joogay. rabiica u tag bay tiri. rabiica waa ninkay ugu kalsoonay diintiisa. halka waxaa laga qaadan hooyadu markay rabto ilmahaaga inaad tarbiysiiya aabbaba qofka aad diintiisa ku kalsoon tahay ilmahaaga uge. hadduu meel dhow joogo, hadduu waxoogaa kaa durugsan yahay, haddii aadan xitaa magaalada ku kalsoon meel kaloo fiican aad ku og tahay, qofka diintiisa aad ku kalsoon tahay baa loo geyn karaa ilmaha. ayib waxay u dooratay rabiica bin cabdiraxmaan, isagay gacanta ka gelisay. waxayna ku tidhi hadal intaa keliya kuma daynin. wuxuu yidhi markay rabiica aan u tegayo u fiirso wiilkii waxay ka keentay heesi iyo fulaan iyo dharka iyo qaabka loo labistay qaabka tima loo jartay iyo xaggaa dhan way ka soo leexisay. rabiica markay u diraysay wuxuu yidhi fa albasatnii dharkii culimmada ii xirtay. qamiiskaasoo kaloo yaroo wiilasha loo geliyo dhar bay ii xirtay. wa cammamatnii cimaamadna way ii duubtay. waxay rabtaa inay isaga dhinta wajuhiisii iyo qaabka u fikiraya dhan inay beddesho. waa suluug. way ii cimaamad bay ii xirtay. kadib baa waxay tihi idhab ilaa rabiica orod intaad rabiica aaddo waa sheekh rabiica fatacallam min hadyihi wa samtihi qabla cilmihi wa fiqihi. waxaad ka soo barataa akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa intaada cilmigaba baraninba. cilmi iyo fiqiba intaan loo gudbin aadaabta iyo akhlaaqda ka soo baro. hooyadu waa madrasada ilmaha marka soo saartay ugu horeysa. waa madrasada aadaabta iyo akhlaaqda caruurtu ay ka baran karaan. waa guriga Soomaalida arag macallimiinta iyo markii loo geeyo haday rabaan inta ilmaha soo uleeyaan ilmaha akhlaaqda xunayn la soo tarbiyeyninoo saasay u hadlaan. waayo meesha ay dareensan yihiin in wax laga soo tarbiyeeyaa waa guriga. imaamu shaafici raximahullah isagu sidee buu ahaa? shaafici wuxuu ku dhashay magaalada Gaza waa dalka Falastiin. wuxuu dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd 150. waa sanadkii Abu Xaniifa uu dhintay weeye. ayib isaga oo 2 sano jira ayay dhimatay iyo aabihii dhintay. imaamu shaafici agoonnimo ku soo koray. ayib hooyadii baa gacanta ku qabatay, iyada ayaana soo barbaarisay. magaalada Gaza ku dhashay Falastiin isagoo 2 sano jira ka soo kaxaysay.
maka ayay keentay. maxay u keentay? laba arrimood. nasabkiisaa la yidhaha inuusan khaldaminna way rabtay, oo dadka halkaa dego oo yamaniyiin asalkooda uusan ku dhex isagoo qurashi inuu ku dhex dhumin way rabtay. midda labaad, makana xilligaa waxay ahayd meesha cilmiga laga bartay oo culimo badan ay isugu yimaadeen. sidaasay u keentay 7 sano isagoo jooga imaamu shaafici qur-aanka xifdiyey, 20 isagoon gaadhinna masaa-isha cilmigu ka jawaabi jiray. sidee buu ku bartay marka cilmiga? faqiir buu ahaa, waxba gacan kuma haynin. wuxuu leeyahay isagaa wuxuu leeyahay waxaana kuntu yatiiman fii xijri ummi, agoon yar oo hooyadii dhabteeda ku jiraan ahaa. markii macallin dariska iyaga ahaa buu yidhi, markuu ilmaha qur-aanka barayo, ilaan macallimiinta lacag baa la siiyaa, hooyadee waxba ma haynin, xitaa warqad waxa igu soo gadda wax lagu qora mayna haynin. wuxuu yidhi markuu qur-aanka barayo isagoo 5 jir ah wuu iska ag fadhiisan jiray, wuu dhegaysanaa. ilaahay baa dakaa iyo siiyey iyo maarta fiqi. kadib wax alla wuxuu caruurta barayo wuu xifdinayaa isagu. markuu macallinku kaco oo ama xaafadda aado ama soo yar seexashi iyo cunto iyo u aado, isaga ciyaalka ugu sii celceliya casharka. cidnana ma barin, lacag lagama bixinin, macallinku ihtimaam ma siiyo. macallimiinta waad aragteen ilmihii wax laga bixiya bay si fiican wax u barayaan. marka qaarkood haddayn daacadnimo jirin, inkastoo jiraan qaar badan oo maaragtay 100 iyo ziyaado ay maanta waxaan booqday markaska ibnu Malik, sheekh maxamed uu ii sheegaya 100 iyo ziyaado qof oon waxba laga bixinin baa dhigtay. marka way jiraan marar badan, laakiin way jiraan wada aragta haddana macallimiinta qaar aan ogolayn ilmaha wax laga dhiibayn. imaamu shaafici waa iska ag fadhin jiray, dushuu ka qabtay qur-aankii buuba bartay, wuxuu noqday marka kabiir camal. markuu arkay macallinkii wuxuu dhegayso, adiga lacag kaama rabee ee ilmaha kabiir iigu noqo. waa heshiis. sidii buu marka ku shaqaaleeyey, kabiir buu noqday, ilmuhu ugu celin jiray, uu ilaalin jiray. 7 sano markuu gaadhina qur-aanka dushuu ka qabtay, shilin isagoo laga bixi. ayib 20 isagoon gaadhinna wuxuu bartay cilmigii buu bartay. wuxuu leeyahay markaan qur-aanka xifdiyey ayaa waxaan bilaabay markiiba inaan xadiidka aan dhagaysto. ayib xadiidka inaan dhagaysto ayaan bilaabay. haddaba aqwaal aada u cajab badan baa jirtay oo hooyada murabbiyada ahayd ee imaamu shaafici dhashay ay ku odhan jirtay wiilkeeda erayo aada u cajab badan. bal arrimahan dhagayso, waa tarbiyada qaab ka mida ugu muhiimsan. maalin maalmaha ka mid a bay imaamu shaafici horteeda soo fadhiisiisay. waxay ku tidhi, ibnii caahidnii cala sidqi, wiilkayow ballan ma ila geli kartaa? ballan baan rabaa inaad ila gasheen. waxaa lagula gelayaa ballanta asidqi, run. weligaa inaad run sheegayso oo aadan been sheegayn. waa tarbiyo u fiirso ugu fiican. ilmahaagu hadduu been kuu sheego, uu macallinka been u sheego, oo sheekh been u sheego, oo qof walba been u sheegay, xaggee buu gaadhayaa? marka waa inaad adigu kow ku barbaariso. waxay ku tidhi, weligaa been ha ii sheegin. ma igula dhaaranaysaa? haa buuri. ballan ma igula gelaysaa? haa. ma ballan baa? waa ballan, waa lagu kala sixiya. waaya wiilkii waa dhaqaajiyey, manhaj iyo suluug waddo wuxuu ka dhigtay ballanta. maalin maalmaha ka mida maxaa dhacay marka? ilaahay baa ku imtixaamay arrintii, bal inuu ka soo baxo iyo inuu jabiyo. isagoo dhalinyaro abuu raacay safar. wiil agoonoo de qof ka koreeya male. safarkiibuu la socday. safarkii oo dhexda maraya iyay tuuga qabsatay safarkii. wixii la watay oo dhan baa la yidhi keena, nin walba ha keeno wuxuu hayo, isku soo ururiy. rag waaweyn baa nin waliba wuxuu yidhi anigu wax ma wato, waa qarsadeen. wiilkii yaraa imaamu shaafici baa furay jeebkiisa, wuxuu yidhi anigu intaanan wataa. tuugtii buu tusayaa, intaanan wataa anigu. ninkii tuugada watay baa intuu la yaabay yaa wuxuu ku yidhi, adeer haddaad qarsato soo moogid lama arkeen, dadka kale way qarsadeen. wuxuu yidhi aniga u fiirsa hadalkuu yidhi. wuxuu yidhi caahadtu calaa ummi asidq, laqad caahadtu ummii cala asidq.
أنا هويدي بان بلن كلا قلي إن رون شيء ووفاء لعهدها صدقتكم القول والحديث فلين أن فلين أيو بلنتي هويدي بان رون إدين كشيء نينكي تودا وتبع وكيري أمك غائبة أم حاضرة هويدا مين مقنتها مسوي إذا لا سقطها هذا يقول وين مقنتها ويقول ما هويدا أم مقنبض إلى لين يصاب بلنتي هذا هابوي الله لا ويقول أنا جا كجاه بون إن الله يفير سنة إلى لي بلنتيس نينكي أمر بو كبحي دمان إن لو عليو سفر كي وحي لقى قاتي wiilkii yaraana loo celiyo isaguna halkii uu ku toobad keenay lusuustii iyo tuugadii watayna waa kala diray waa sidqigii iyo runtii imaamu shaafici uu sheegay hakada athmarat at-tarbiyatu al-hasanatu quwwatan fi ar-ra'yi wa thabatan fi al-haqq wa salabatan fi ash-shidda sidaasay u keentay awood sidaasay u anfacday sidaasaa sigarka iyo yaraanta wixii loogu sheegay markuu weynaaday ay faa'iido ugu noqotay la yaab male imaamu shaafici hooyadii baa bartay aadaabtan hooyadii baa akhlaaqdan soo bartay maalin maalmaha kamida waxa kamid ahayd maalin bay u dirtay isagoo yar bay ka dirtay Makka Madiina aad bay tiri waxay tiri orod cilmiga soo baro walu fiirtay aadaab sidoo ku bartay orod aada cilmiga soo baro yaa u diraysaa imaamu Maalik imaamu daar al-hijra oo jooga Madiina u dirtay 500 oo kiiloomitir baa loo socdaa Makka iyo Madiina baabuurkaaga dadka xajka ku aaday baa arkay 5 saacadood ilaa 6 saacadood baa lagu tagaa maalintii oo baabuurku inta wadada u saaran yahay jidkaas baabuur ma jirin diyaarad ma jirin faras ma jirin awood ma haynin wiil yar oo ahaayo dhalinyaro oo 12 jir ah orod bay tiri aad Madiina هو هذا إمام دار الهجرة إمام وحود تجي مالك إمام مالك علمه كسوبرت مدمر كجوجي ولا رتيه ده علمه وين هو صوص سلامان يا وحي يفصحي وحنا هذا يا هوي صوص سلام يا مكويم هو يدي أقولي وكجرتوا الباب وكجر جراعي مركز من وكما عروا محمد بن إدريس ومجلس إمام الشافعي محمد بن إدريس وماذا جئت به محال تمضى محال وضع جئت بالعلم والأدب علمي آداب وضع وعكوت لي متي الشافعي جوابت هذا ان كقرني الشافعي متي أرض بح والله أبو كما يفرن الباب كان هل كيبو كلابتي مدينة تجي إمام مالك بقوة الرمي إمام مالك باير محاد سميسي ساسان سميي محاتر مركي كتير محاد وضع وحنقول جئت بالعلم والأدب العلم علم وهرمري والأدب وحو قصلي إمام مالك يقول أرض نقه مركي كتير وكوم أترى ومحمد محاد وضع مركي كتير هذا وحاتر هذا جئت بالأدب والعلم هرمري مركي ورا استبقى الدين بس كسميس جئت بالأدب والعلم آداب تهرمل يا هرية آدابتي علمك آداب تكورس وحيفا سيدي بوسمي وكما ومحمد محل وضع آدابي علمي سوق البيت هذا طي شافعي الآن شافعي هذا طي شافعي وسوق لي ويكفرتي هو يدا وحيفا انتبه ليلوي أوقاتي أنه لم يدرك الهدف والغاية وجددي ويلش عرورته wax loo bariyay inuu san fahmin bay fahamtay markii hore oo ujeedada weyn waa maxay waa tarbiyo ujeedada ugu muhiimsan waa tarbiyo ولذلك ayay oran jireen dadkii salafka كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم علمiga sida loo bartaa akhlaaqdana loo bartaa culimada laga bartaa dadka wanaagsana laga bartaa dhaqanka fiican ee islaamka طيب إمام مالك حنجد إمام الشافعي رحمه الله آدابتا إلهي براي أو لغو عليي أو مالك لجوغي باوحي لواقي دنبورن جري
تعلمت من مالك الأدب أضعاف ما تعلمت العلم. مالك وحان كبرتي آداب تربضا أضعاف وأضعاف من العلم. انت سوجر علمي والله الله آداب تكبرني. آداب أن كسر كبرني. إمام الشافعي أحمد بن حنبل وكاد وعوا كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. يعني وحكم مثاليي إنه سيدا قرحضو أي دولك النور الصبو علميس وددك واها حليس. إمام إسحاق بن راهوين وحيري قف كانوا كلئن إلهي أبو ري ومن ملايين ما أركبوا ولي ما أركبوا السواك. إمام أحمد بن حنبل بانوسو قد بين نوانكي وقد بين أئمة عفرتها. أحمد بن حنبل وحور شيء بقول لحدن يعفر تاريخ الهجرية وما أنت كن يعفر بقول عفرتني يكو بشي كوبات الضوابط هذه سديد هذه مريسة. طيب تاريخ ذا وحكوينا إمام الشافعي أحمد وحكوينا أفر يطلع سنة. مركا أئمة أفرت أبو حنيفة يا مالك يا شافعي أحمد ويسوى ذا كارين. إمام أبو حنيفة أو بنتي بقوليه كنتن مركا تاريخ واحد. إمام الشافعينا بقوليه كنتن كاسو بشيء. أحمد بان يسوي سوق جاري لكن كوا كلا سوق جاري. طيب وهذا الشيء صفية الشيبانية ويدي صفية لورنجري. طيب يسوي أو علاشة كجرا أما يسوي أو يربو أبيه بنتي. أقوم بوسنا كسوق كوري وقال وحو أورنجري مركا هذا لا عجب بدن أحمد. وحو يري فحفظتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنين. ويدي بقى قرآن كيحفظ السيسي أنا وتبنجر. إمام يدا قن موجود وح عبشة جايين كجرو. هل كم ذي أبو مسوقات؟ نول بوحوله هو يدي بقى وحى يقبت. هو يا قرآن كيحفظ السيسي أنا جو تبنجر. طيب وكانت توقدني قبل صلاة الفجر. صلاة الصبح كهرب إكعنجرت هو يدي. وتحمي لي ماء الوضوء بيها ويسد أي يكل لينجرتي في ليالي بغداد الباردة. إمام أحمد وحكول الشيء مقالة بغداد تلك العراق أدبئ قبوده اللي ذا قاركو. طيب حلي قاس قبو أي هو بيها يكل لينجرتي وتلبسني بركي وناك سنايا علماء إيه جرت ثم تتخمر وتتغطى حجابها مركز الأرك هذه حجاب كأنه كلا أبي قادم جرت وتذهب معي إلى المساجد كي إلى آل جرت ولي وحي في رنجت حتى ترى الشرطة الباب كي تاجنان جرت يقول كذي كعسي وديار قروبي وبيه وكل يسي ويسيستي لبسين هاي الباب كي تاجنان جرت وحي سويسي شرطه انت شرطه waxaa la yiraahdaa booliska subaxii socda yani cabsi habeenkii way ka baqayeen waxa rabtaa inay markii la arkay booliska ayaa waxay ogaanaysaa waagi inuu bariyay oo markaas la soo ay soo dhaqaajiso tayib kadib ayay igeen jirtay masaajidka xogaa yar oo quraac intay siisay oran jirtay qaado quraacdaadii 10ka salaada subax la aqrinayo soo dhageyso imaam ahmed sidaas uu hooyadii uga sheekeyn jiray غرست في نفسه نفتي سيكو أبورتي إسقو يربي كو أبورتي إيمان يوحفي عن وحو النقض إمام أهل السنة والجماعة أيو النقض أحمد بن حنبل وحو جمعية علمي الشريعة يزود يورع انت بو جمعية وبهذه الطريقة مركو يدي قابك أو الرمي وحو دريمي افتخار اعتزاز بو دريمي تضباطا سنمركو قاري أحمد بن حنبل مو نهل ما من هو يدي ولي وحي وقبن جرتي يا وحي أسمين جرتي ونكشة كين جري وعورن جري رحم الله أمي هو يدي الله نحرست كلما تهيأت لصلاة الفجر تذكرتها أبو رجل مركز طوع صلاة الصبح عن أكعو هو ينحسوستا مروا البوان حسوستا محوكو حسوستا كانت وحي تجهز لي ثيابي ووضوئي dharkayga iyo weysadayda bayada ay diyaarin jirtay albaabkeena istaagi jirtay sidaas aan ku xusuustaa Safiya Shaybaniya
oo Ahmed bin Hanbal hooyadii waxay ahayd sawaamatan qawaama qof soom badan bay ahayd qof habeenkii istaagtay ahayd waxay jeclayd iyo wiilkeedu inay salaada habeenkii isla tukadaan ayay jeclaan jirtay markuu gaaray 16 jir Ahmed bin Hanbal 16 markuu ahaa wala fiirso hooyooyinku kulligood wiilasha way dirayeen carruurta way dirayeen hooyooyinkeenan ku dhagan hadda oo inuu ka dhumo iyo inuu ka waxeeyo ka baqi maayo 16 jir isagoo abay dirtay waxay ku tiri orod cilmi doono oo xadiidka rasuulka soo baro barashada xadiidku waa waxa weeye hijratun fi sabiilillah ilaahi jidkiisii weeye orod bay ku tiri wuu baxay halkaasuna cilmi doon 5 jeer Baghdad buu joogaa waa Iraq 5 jeer buu Xijaaz tagay Makka iyo Madiina 5 jeer bal Yemen as-Sanaa buu tagay inta isagoo cilmi raadi baabuur lama raacaynin diyaaradna ma jirin waa lugeynay mar badan muuna haysanin xitaa wax sahay ah mararka qaarkood markay jidka sahaydu uga go'do naftiisu kireyn jiray markaas intuu shaqeeyo ayuu wixii la siiyay buu haddana safarka ku sii wadan jiray hooyadii sidoo ahaan wuxuu hadal waxa laga hayaa Ahmed bin Hanbal birrul walidayni kafaaratul kabaa'ir boodan jiray waalidka oo baari loo noqdo dunuubta waaweyn baa lagu dhaafaa tayib sidaas markii uu baxay 16 jir markuu ahaa tiri hooyadii orod cilmiga soo bariya xadiidka rasuulka maxay siisay muxuu watay maxay haysay waxay siisay 10 arqifa 10 xabo oo sabaayad ah ama canjeero dheh ama muufa dheh 10 xabay siisay suratu milhina wax yaroo milix ay u shubtay wax yaroo milixana way siisay oo saa u marsado biyaha uu ku cabo intaasay tiri qaado orod cilmi soo baro طيب khulaasada afartii imaam baadaan isku soo ururino waxaan rabaa 3 arrimood 4 arrimood inaan ka soo saaro arinta ugu horeysa horta al-mar'a laha dawrun fi hayati al-a'imma al-arba'a waxaan halka ka ogaanay hooyo afarta imaamba afarta madhabood maqashay hooya kula hayd kaalin afartooda Ahmed bin Hanbal hadda aan haynay maata abuhu abi isagoo yar buu dhintay maata zawjuha ninkeedii wiilkeedii oo hadda dhashay ama caloosha ku jira labadaas la isku haya inuu caloosha ku jiray iyo markuu dhashay inuu dhintay ayuu aabihii dhintay farafadat az-zawaaja hatta tarabatu iyadoo dhalinyaro ah oo gabadh yar oo da'yar ah guur way diiday Ahmed bin Hanbal hooyadii ilaa wiilkeeda ay ka tarbiyayso koow Imam Shafi'i waxa ka dambeysay hooyadii sidoo kale isaguna agoon buu ku noqday aabihii 2 sano isagoo jira buu dhintay iyaduna halkaas ay kala soo tagtay wiilkeedaasay guur ay guursatayna lama sheegin oo ka dambeeyay waxayna tiri hadal cajab badan qad nadartuka lil ilmi la'alla Allah yajma'u bika al umma nadar baan ku marabtay nadar ilaahay baan la hoos galaya inaad cilmi barato ummadda inaad isu keentaan rabaayo ummadda waka maanta Imam Shafi'i wadamada adduunka hadaad marto wadankan Shafi'iyaan nahay fulaan baan nahay Shafi'iyaan nahay xagee intaas oo adduunka ilaahay baa ummadda ku jamciyay Imam Malik isagana waraahu ummu hooyadii baa ka dambeysay oo anqadathu min sulukin sayyi ila sulukin ijabi hooyadii waxay ka leexisay wada xun oo rabay inuu qaado wadadii heesaha iyada ka leexisay wadadii fiicneed oo cilmigeena u leexisay ilaahi bana subhanahu wa ta'ala ku kaalmeeyay hadaba ummahaadkeena iyo gabdhaheena waxaan rabnaa inaad maskaxda gelisaan imaam hooya soo saarta gabadh caalimada hooya soo saarta oo gurigeeda naajixad ku ah gabadh raali ah hooya soo saarta wiil baari ah hooya soo saarta qof fiican hooya soo saarta marka kaalintiina insha Allah ta'ala ka qaata hadii Allah arinta labaad oo aimada ka dhaxaysay inta ugu badan gaar ahaan Imam Shafi'i iyo Imam Ahmed waxyaabaha cajabta badan arrimo wada isku midab ay lahaayeen Shafi'i Ahmed
horta waa marka koowaad labadooduba nasabkoodu nasab shariif oo wanaagsan bay aimado dhan nasabkoodu fiicnaa laakiin haddana labadoodu nasab fiican bay wada ahaayeen oo murtafic oo la yaqaano rafiica nasabka sharafta badanna wuxuu qofku u diidaa baa la yiraahdaa safaasiful umuur iyo meelo xun in lagu arko waxyaabaha uu keenay wanaagay koow ka tahay nasabka aan ka hadlaynaa ma aha qoys ay iyo reebel baa sidan iyo ka laga ma bood laakiin markii reerku reer la yaqaan yahay ibnu sheekh hebel iyo fulaan iyo qoyskii nooca ah oo dadku ay sheegaan oo kale waxa laga yaabaa meelaha qaar kood war maxaa u geeyay waxaan oo kale wiilkii sida in ama gabadhii nooca ahayd waa meesha lagu arkaayo laakiin ilmo markii horeba jidka taagnaayo ama laga yaabaa abi hooyo iyaga dhanba ay noocaas ay dhaleen waxa laga inaan aad loola yaab markii horeba qoys noocaas labadoodu ka dhasheen waa marka labaade labadooduba agoomay ahaayeen agoonkana waxaa la yiri way yactamid nafsuhu qofku markuu agoon yahay isaga naftiisa ictimaaday aaba sugi maayo awow sugi maayo adeer sugi maayo isaga isku tashanay iyaga isku tashaday hooyooyo ba ilaahi subhanahu wa ta'ala ku inqaadiyay iyagana isku tashanay arinta saddexaad waxay ahayd al-faqr labadooduba sabool bay ahaayeen waxba gacanta kuma yahayn taasina waxay keentaa baa qofka faqiirka inuu ka baxo isku dayaa adduunka dadkan aad aragteen ee inta ugu badan xitaa inta ugu maal qabeensan iyo inta ugu waxaysan waa dad meelaha ka shaqayn jiray waxyaabaha wareejin jiray dadka ugu saboolsan bay dadka ahaan jiray waayo qofkan waxba ku jira laakiin ilmo yar oo ku soo ka wiil iyo gabar guri barwaaqaysan ku soo koray iyagoo yarirba weligood baan aragba wax gaajo iyo rafaad soo marin wax ma qabsan karaan wax ma dareensan yihiin wax ka maqan ma og yihiin marka imaamu shaafici iyo imaamu axmed laba faqiir bay ahaayeen laba agoon bay ahaayeen warqad ay ku gataan buugga mayna heli jirin hal warqad mayna haysan imaamu shaafici wax ku qori jiray lafaha xoolaha ay wax ku qoran jiray tayib kaasna wuxuu keenayaa ruux marka inuu ka baxo inuu isku dayo waxay ahaayeen qanaac ay lahaayeen way ku qanacsanaayeen in nolosha ilaahay siiyey عزيمة قوية أيه لهاية نفتوضنا إلى العلا والتقوى أيه مرول بوسعت الأئمة الأربعة أفرتوا إمام مركز اسكتروا إيه عبادة السيدة كوا هايين قدوة كاملة بيا هايين كلامك هذا الكود إيه فعل كودنا وإس وافق سنة كاسنا وسر النجاح بل وحي كقول يستين صاصيه طيب الأئمة الأربعة وحاول ديرا مواهب كلا ولو شقة يستهدنا يعني مثل الإمام الشافعي شعر كي يقبل ولو قدم بإمام الشافعي ديوان أبي الإمام الشافعي بوليه هذا طبعا كن أو بيت أو قبل أبو توشة كاهي لقد عربيت السح لا باديه أنت اللي جي لصابره إمام أحمد خطاط بوها خط كدتك قرب وها يو فرط قروح ضبضان مالها لو قراد أركتين نينك قرب وها تاسو كان إمام مالك دتك أنت أوفر إصلاحيه هالشيء بوها حرف كلو علمي أنا هين أو كلام السلاح حتى أوضل هاينو مارت النورش ولا كم هاي إن شاء الله تعالى جبدي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى نوهديو حتى نخرج جيلا فاعلا مؤمنا سيان صار ردت وحقب سنكر وأهل الإيمان الله نقدر إن شاء الله أولادنا الله قبليه ويل باهين وهجاتشيو وهينو وناتشيو إن شاء الله تعالى أنت أسبان ربنا إلى وداعو جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شيخ النور